ديوان قلي مقع اسم هاي حسن حسين يوسف إلهي أنا قبرنا فاتحة وآخرنا إلهي أنا حرست فاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قف الله خصب لو دل واجه خصب كلي هذا الدلا صوب الله معناه هذا محوي هاي دولة دم اللي ودنيا هاي ولا ودلية هاي ولا جو ترتمعه وكل سنة نظام كأدون كهذا كجرة ومحيط هاي محات غانا يا تغان معه هذا محاجرته يا تغان يا كوضة لكن محات غان مجرته وحال هلي كرا دولة دا دات عن حلبان كل هين وحال هلي كرا دات حلبان كله لكن هل غفو شغالة عن كل هين أغونتي الله بهنا يكرتي دينا له محي يكون عادي وحيكون عادي عدالة در لاسمه ويديه ولا قصعده نلا أركبه وأنت كوسو جوي كرت جوسو أنت تجاري كرت جار أيها القصعده أرنتي مدني ماذا إلا المناسبة ده وحنا لهني وحيك كوابنت حرية يا مدني مو أرنتي مدني ماذا حقين نوجوكته وحلا جهال لا يرجع جهال ري وحيك هذا سوماليلاند oo ayagu bilaabay aragtida midnimada oo ay ahayd in lagu abaal mariyo hadii dib dhacay ee dawladda militariga wax ka tabtaan waxay ahayd taladii kale meesha lagu goynaa inay joogan hadii tabasho ay qabeen waxay ahayd gogol in loo galo oo laga hadlo waxa ay tabanayeen waxaan xasuustaa xilligii xafiiska aan joogay waxaan la bilaabnay wada hadal meel fiican oo soo gaaray hal maalin mas'uuliyiinta dalka iyaga dambeysay war xageen nimanka isla soo gaarteen maxay rabeen maxay diidanayeen layma weydii ilaa wada hadal qof kaaga horeeyo soo ma aha in la wareysto dheeraa xagee wax ku joogeen ya hadda waxa si dheer hayday aflagaadada waxa si dheer cuna qabataynta ma ku imaanayeen sidaas qofka arinta sameynaya ujeedadiisu ma tahay inuu soo celiyo waqooyiga hadduu sidaas rabo inuu ku keeno maxamed siyaad barro ka xoog badan keeni waayo ciidan military haysto keeni waayo marka waxaan leenahay walaalaheena reer Soomaaliland raalli ahaada wixii hore idinku dhacana ka raalli ahaada waxa hadda socdana raalli ka ahaada Soomaalina arintaas kuma midaysna ragga sameeyay la noqotay annaga saasna lama ah annaga waxayna la tahay cid kasto Soomaaliya oo tabasho qabta in la fariisto tabashada la dhageysto xalna la gaaro Soomaalina waxaan aaminsanahay haday isu timaado xal waa gaaraysa intaas hadii laga soo gudbo dalkan hadda wuxuu noogu dhisan yahay system federaal ah ujeedada ugu weyn oo loo dhisay federaalka waxay ahayd hal leys aamino qolo la arko meesha joogto ha soo hagaajiso wixii ay isu dhadhow ha leesu soo laabto ha leesu yimaado laakiin hadda uma socoto sidaas waa ka duwanta safarkiina waa dheeraaday dadku waxay ku dhow yihiin calanka buluuga ba in la ilaabo Soomaalinimada in la ilaabo qolo la arkaba calan gaar ah ay leedahay xoogaa buluuga kor ku leh in loo dhiibo la raakana leedii hadday saan wax ku socdaan inta yaroo buluuga inay ka bixiyaan wax diida lama ah maxay colaada laga sameeyo Soomaa dawladda dhexe waxay u taagan tahay inay soo dunto dawlad goboleedyada dadka ka aragti duwan inay soo dunto ilaa nidaam iyo system looga wada heshiinayo si dhameystiran laga gaarayo magaaladan caasimadda waa magaalo aad u wanaagsan oo qof kastaba uu dareemayo markuu soo galo inay magaaladiisa tahay laakiin madaxda timaada waxay u abuurtaa colaad waxay u reebtaa eed dadkeeduna waa iska aamusan yihiin kama hadlaan arintaas arrin fiican ma aha maanta meesha la wada leeyahay la shinsanayo Muqdisho waay Muqdisho hadda sida wax uga socdaan haday u socdaan waxa u maleynaa wax Soomaali u hore aanu ma aqaan
annaga waxaan rabnaa caafimaadku inuu halkan ka bilaawdo meel walba uu gaaro maxaa yeelay waa caasimadii midnimadu halkan inay ka bilaabato meel walba ay gaarto ninka gobolka jooga iyo ninka degmada jooga meesha ay shinsayaan inta inay naqataan rabnaa annaga marka la yiraahdo doorasho waa waxa ugu fiican oo bani aadam oo sameeyo inuu isdoorto oo talada cidda loo dhiibayo la doorto si lees la og yahana loo doorto haddii waliba ay tahay doorasho toosa doorasho qof iyo coda waa wixii aan rabnay waa wixii aan raadinaynay waa wixii ummaddu ay rabtay laakiin suuragal ma taha see loo samaynaa su-aalahaasaa taagan caasimadda si gaara dowladdiyaa joogta dastuurka waxaa ugu qoran caasimaddu waxay yeelanaysaa maqaam gaara maqaamkii gaarahay ma la sameeyey lama samaynin qodobada hadda la bedelayay 4 cutub waa laga saaray gadaala loo dhigay maxaa looga saaray waxaa la yidhaha qur-aan ka wareeray alif albaqara kama tooso caasimadda see doorasho looga gela haddaan maqaamkeena maxaa lagu dooraa maxay ku kala duwan tahay doorashada balcad laga sameeyey degmada balcad iyo doorashada xamar laga sameynaa maxay ku kala duwan yihiin xamar waa caasimad waxaa la rabaa dadka deganna inay xuquuq yeeshaan soomaalida shinsanaysa oo caasimadnimo u shinsanaysana ay xuquuq yeeshaan ma noocad yihiin waxaas hadda ma noocad dadka jooga heshiis ma ku yihiin heshiis kuma aha magaaladan inta aan wada ognahay ayadoo dhiigu daadanayo oo aan laysu gudbin oo dhibaatadu badan tahay waa taariikha idinla wadaagayo ujeeddadana waa idiin sheegi doonaa ayaa maxkamadihii soo baxeen tala odayaal fadhiistay oo heshiiyey oo meel wax wada dhigay laguma furin waxaa lagu furay talo amni talada amniga waa lagu guulaystay waxay ahayd talo oday inay ku xigto talo waxgarad inay ku xigto layskuma simin dowladdiyaa timide waa laysu soo gaarsiiyey weli gogol nabadeed ee magaalada muqdisho ka dhacday ee dadka reer muqdisho ay isku cafiyeen ee talo guud iyo talo gaara lagu yeeshay ma jirto nidaamka hadda jira madaxweynaha joogaa magacaabo wax waa laga qabi karaa laakiin lagama buuqo hadday ka gudbayso waxaa la rabaa cidda imaanaysa say u ekaanaysa anaa meel isla dhigno meeshay ka imaanaysa inaan naqaano in uu naqdo madax noo wada dhexaysa inuu naqdaa la rabaa arrintaasna haddaysan tala ku imaanin sida hadda socota ma ku imaan kartaa ma ku imaan kartaa qof socda oo baawur laga dejiyey qof guri dhisaayo lasoo dejiyey qof jidka laga leexiyey oo la yidhi waa lagu diiwaan geliyey ma ku imaan kartaa kuma imaan karto dadka waxaan samaynaya waxaan islaha intaad garatiin waa gartaane maxay rabaan dadkaan maxay rabaan dadkaani wax ilaan xumaan iyo samaan tuma eka arrintaas inaan wanaag ku imaan karin waa wax la wada garan karo maxaa loo samaynaa horta ninka maanta dhintay oo u dhintay isdiiwaan geli magaciisa muxuu ahay xasan xuseen yuusuf ilaahay aan uga barino faatixa aan akhrino ilahay aan u naxariisto faatixa a'uudu billahi minash shaytaani rajiim bismillahir rahmaanir rahiim nabiisa ka waraabiyo runtii waxaan u dabaaldegayno waa xurriyad iyo midnimo in qof loo khasbo oo loo dilo waagi hore khasab kaliya hadda dilaa soo bilowday internet plus waa adeeg ay macaamiishu